akhyaarta dhammaantiin waan salaamay walaakiin maxamed jaamac insha allah tacaala waxaan kaga hadlayaa taxanahan koynaka kuwa ugu muhiimsan iyo majaalada ay ku jiraan koynakaas si kale haddan u dhigo kategoriyada ay ka mid yihiin amba waxa loo yaqaano narrativeska cryptocurrency-ga runtii wuxuu noqon doonaa taxanahani taxana aad iyo aad u xiiso badan majaalo fara badan oo cusub oo la danaynayo aad ku baran doontaan iyo kuwa aan isleeyahay anigu mustaqbalka dhow waa laga faa'iidi karaa mustaqbalka dhowna waxaan uga jeedaa buuranka 2024-2025 haddaad nagu cusub tahay waxaan kaa codsanaya inaad like iyo share iyo subscribe aad noo saartid channelka inta badan waxaan kaga hadlaa waxyaabaha cryptocurrency-ga calaaqada la leh iyo waxyaabaha financialka ah soo dhawaada akhyaarta haddii aynu ku bilowno kategoriga hore waxaa la idhahdaa real world asset amba RWA oo shortcutkiisa ah RWA daasina runtii waxay ka caawinaysaa dadka in wax kasta oo noloshan caadiga ah ku naqaano ee wax kasta la taaban kara ah qaab digital ah oo hadhow blockchain-ka la soo dhaxgeliyo mar haddii blockchain-ka la soo dhaxgeliyana information-ka iyo xogta iyo wax kastoo maaragtay halka ka dhaca waxay noqonaysaa arrin record garaysan oo weligeed blockchain-ka dhex oolaysa majaal waxyaabo fara badan soo kordhinay weeyaan oo aad iyo aad u qiimo badan maadaama la doonayo wax kasta imika in digital laga dhigo oo gebigeenaba aynu ku noolaano nolol ah digital oo wax kasta aynu isticmaalno uu ahaado wax digital taana runtii wax u sababa oo hore aynu u aragnay metaverse-ka iyo NFT-yada marka inta badan tokenizationkaasi waxay noqon karaan NFT-yo amba qaar ah token caadiya oo blockchain-ka dhexdiisa lagu isticmaalo insha allah tacaalana koynaka kuwa ugu muhiimsan amba tokenada ee laga faa'iidi karo buurankan oo ku dhex jira RWA-da wayna dul istaagi doonaa markaynu nimaadno coin market cap-ka waxaanu taabanaa qaybta category-ga kadibna waxaanu arkaynaa intaas oo boqol oo category oo runtii maanta waxay gaarayaan 228 category oo kala duwan qofka maalgashi doonaya inuu sameeyana waa ku adagtay inuu majaaladaas oo dhan uu lacag u geliyo waayo intooda badan qaar baa xitaa xaaraana markaa waa inuu qofku mar walba ka taxadiro meesha uu lacagtiisa u gelinayo haddaynu nimaadno kategoriga 109ka amba kaalinta 109aad ku jirta ee real world assets ay ku qoran tahay markaynu taabano halkaa waxaa inooga soo baxaya tokenada iyo coinaka ugu muhiimsan market capka qaabka ugu jiro imika waxaynu aragnaa avalanche ayaa hogaaminaysa oo berigi dhaweyd waa tii sharaakooyin la gelisay baanaka kala duwan ee waddanka maraykanka waxaa ku xiga chainlink waxaa ku xiga ICP iyo ondo oo coin cusub asaguna AI-da ka shaqeeya liisku runtii waa farbadan yahay laakiin ta ugu muhiimsan waxa weeye market capka kuwa yar inaynu horta kasoo bilowno oo research aynu ku samayno kadibna halka aynu kasoo xulno coinanka runtii hantida fara badan ay soo geli karto mustaqbalka oo lacag halkaa aad iyo aad u fara badan laga samayn karo aynu avalanche iyo link iyo ICP kuwa ka hooseeya aynu eegno weliba sidan sheegay market capka markaynu haddana aynu taabano waxaanu arkaynaa coinku runtii inay badan yihiin akhyaartan waxaan ugula talin lahaa 2 coin ilaa 3 coin inayna ka badsan fursadana runtii waxay ku jirtaa kolba sida market capka u kala yaryihiin imka rio kale haddaynu qaadano oo tusaale aynu ka qaadano waxa weeye token asagu wanaagsan market capkiisu waa yaryahay twitterka iyo meel kasta runtii aad iyo aad bay dadku u danaynayaan baaritaankiina inaad mar walba aad samaysaan mar walbana riskigaaga waa inaad xakamaysid investmentna markaad samaynaysid mar walba waxaan uga talinaya akhyaarta lacag aad ka maarataan mar walba aad investment ku samaysaan anigu la taliya dhaqaale meehi laakiin fursadaha jira waa nala sheergaraynaya mar walba insha allah tacaala rio markaynu ka nimaadno waxaynu imanaa tokenka kale la idhaahdo VEXT rutin asaguna market capkiisa aad iyo aad buu yaryahay circulatingka imika 17% ayaa ku jira suuqa max supply-giisuna wax 300 oo milyan oo xabadood in suuqa la keeno marka runtii waxaanu arki karnaa ina kanna fursad ay ku jirto haddii aynu taabano website-kiisa aynu eegno wax kasta oo calaaqad la leh miidyada ay doonayaan maaragtay tokenize inay ku sameeyaan inuu kuna iska baadha haddaynu rio aynu kusoo laabano igaraale ahaada mayna eegin website-kiisa rio asaguna wuxuu samaynayaa waxa la dhahdo private equity digitalization inuu wax kasta oo private equity-ga iyo majaalada sida stock market iyo meelaha ina maxay ahayd ay ka dhigaan tokens haddii dib aan ugu soo laabano real world assets runtii mashruuca aan aniguna investoran ka ahay ee ugu muhiimsan waxaan odhan karaa RWA-da waxaa ka mid ah Alliance Block waana token runtii aad iyo aad u wanaagsan haddii website-kooda aynu eegno isagu wuxuu yahay infrastructure for decentralized tokenized markets marka wax walba oo financial ecosystemka la calaaqad leh oo la doonayo in tokenize laga dhigo oo lagu dhex isticmaalo blockchain-ka runtii asagu wuxuu ka yahay carabtu waxay tiraahdaa xajar al-asaas oo waa meesha wax kasta lagu samaynayo waxaanu ka mid yahay mashaariicda kuwa ugu muhiimsan saynu arkayno coinanka iyo tokenadaas oo dhan iyo hay-adahaas oo dhan sharaaka ay la leeyihiin xitaa halkan hoose haddaynu usoo degno waxaanu arkaynaa ina partnership hay-ado waaweyn ay la galeen market capkiisa haddaynu usoo laabano waxaanu arkaynaa imika inuu ku fadhiyo 95 milyan oo dollar runtiina waxaan u malaynaya kani inuu ahaan doono 1 billion
dollar project supplygiisa haddaynu eegno 90% ayaa suuqa ku jira imaka oo 850 milyan ee xabadooda ugu talagaleen in la suuqa la keeno runtii wax yar baa ugu hadhay saan sheegina waxa weeye mashaariicda kuwa ugu muhiimsan hadda areadan uu joogo runtii waxay la tahay in trade qurux badan laga heli karo ilaa iyo meelaha sare inuu gaarayo waa suurtagal marka mar walba taxliishina ku darsada mar walba baaritaanka khaaska inuu kuna sameeya insha Allah saynu arkino support aad iyo aad u qurux badan buu imika fadhiyaa oo muddo ilaa 5 bilood ilaa 4 bilood halka lagu hayay insha Allah taala waxay la tahay in breakout uu sameeyo kadibna ilaa iyo dusha la geeyo idin Allah taala mashaariicda RWA waa badan yihiin runtii waxaan ugu talinayaa hal u qabta oo baara sharaakada cid la leeyihiin tokenska inta xabadood ee wareegtada suuqa taala inta suuqa la soo gelinayo waxaasoo dhan insha Allah taala runtiina waxaan hubaa inuu majaalkani ah mid aad iyo aad looga faa'iideysan doono